Sanadkii 1932, Australia ayaa wajahday mid ka mid ah dhacdooyinka ugu layaabka badan ee taariikhda. Waxay ahayd dagaal aan caadi ahayn oo ka dhan ah shimbiraha emu, oo ah shimbiraha ugu weyn Australia iyo kuwa ugu dhaqsiyaha badan ee duurjoogta ah. Dhacdadan oo loo yaqaano The Great Emu War ayaa noqotay qiso la yaab leh oo dowlad dhan ay kula dagaallantay kumanaan shimbiro oo aan hubaysnayn. Haddaba, maxay ahayd sababta dowladda Australia ay uga hortagtay shimbirahan? Sidee buu dagaalkan ku dhacay? Maxaase ka dhashay ugu dambeyn? Markii dagaalkii koowaad ee adduunka uu soo idlaaday, beeraleyda ku nool gobolka Western Australia waxay isku dayayeen in ay ka soo kabtaan waxyeelladii dagaalka. Beeraha galleyda waxay ahaayeen xudunta dhaqaalaha ee dadkaas, waxaana beeraleydu ay isku dayayeen in ay raashin badan ka soo saaraan beerahooda si ay dhaqaalahooda u horumariyaan. Si kastaba ha ahaatee, dhibaato kale oo lama filaan ah ayaa ka bilaabatay. Shimbiraha emu ayaa ku qulqulay gobolka iyagoo ka soo guuraya gudaha Australia oo ku soo degayay beeraha galleyda ee gobolkan. Emuyadu waxay yihiin shimbiro waaweyn oo caan ku ah awooddooda iyo orodkooda xawaaraha sare leh, waxayna gaaraan dherer ku dhow 2 mitir. Waxaana la rumeysan yahay in tirada emuyadaas ay kor u dhaafeen 20,000, waxayna cuneen dhammaan dalaggii beerta, boqolaal hektaar oo dalagga beeraleyda ahaa. Shimbirahan oo marka hore ka soo baxay dhulalka kaynta iyo lamadegaanka waxay waayeen wax ay cunaan oo dabiici ah, sidaas darteed waxay u guureen dhulalka beeraleyda oo dalagyadooda si xoog leh u qubanayeen. Beeraha u geysteen burbur badan iyo wax soo saar la'aan, maadaama beeruhu ay yihiin nolosha beeraleyda ay ku tiirsan tahay. Dhibaatadan waxay noqotay mid aad u daran oo xaalad degdeg ah ka dhalisay gobolka. Beeraleydu waxay bilaabeen in ay dowladooda kala hadlaan dhibaatada shimbirahan emu ee beerahooda ka haysata. Dowladda Australia, gaar ahaan Wasaaradda Beeraha iyo Difaaca, waxay go'aansatay inay ka jawaabto cabashada beeraleyda. Waxay abaabushay olole dagaal oo la doonayay in shimbirahan lagu dabar gooyo ama ugu yaraan laga saaro beeraha, iyadoo la isticmaalayo ciidanka militariga Australia iyo hub culus. Kadib, cabashada beeraleyda ayaa sii kordhaysay, dowladduna waxay aragtay in aysan dhibaato caadi ah ahayn in laga aamuso. Waxa ayna soo rogtay go'aan aan la filayn. Waxaa go'aan lagu gaaray in ciidanka Australia oo dhowaan ka soo laabtay dagaalkii koowaad ee adduunka loo diro in ay xalliyaan dhibaatada emuyada. Waxaa loogu magac daray Operation Emu, waana mashruuc ciidan oo si gaar ah loogu talagalay la dagaallanka shimbirahan. Dagaalkii emuyadu ayaa si rasmi ah u bilowday bishii Noofembar ee sanadkii 1932, waxaana ciidamadu ay isku diyaariyeen weerar dhulka oo ka dhan ah shimbirahan. Ujeeddadu waxay ahayd in shimbiraha lagu tirtiro mitraalloosyada rasaasta fara badan ee lagu shido. Ciidanka ayaa isku diyaariyay in ay la dagaalami rabaan wax u eg cadow, laakiin waxay soo ogaadeen in dagaalka dhex mari doono uu noqon doono mid aad u adag. Qaybaha ugu horreeyay ee dagaalka ayaa noqday kuwo la yaab leh. Shimbiraha emu waxay si caqli badan uga baxsanayeen rasaasta. Marka ciidanku ay isku dayaan in ay weeraraan koox shimbiro ah oo meelo fog kala socda, shimbirahan ayaa si dhaqso leh u kala firxanayay. Markii ay rasaastu maqlaan, ciidamadu ayaa isku dayay in ay bartilmaameedsadaan emuyada iyadoo laga yaabo in ay wax ka dilaan, laakiin inta badan way dhaawacmayeen wayna sii cararayeen. Waxaa la sheegay in maalintii ugu horreysay ciidamada kaliya ay laayeen 12 emu, taas oo ka yareed tirada la filayay in la laayo maalintii. Waxaa caddaatay in emuyadu ka caqli badnaayeen ciidanka ka soo horjeeda. Xayawaankan ayaa soo bandhigay awood dheeraad ah oo orod ah iyo adkaysi, halka xabadaha aysan shimbiraha si fiican u dilin. Qaar badan oo ka mid ah emuyadu ayaa dhaawacmay, iyagoo haddana awood u yeeshay in ay sii cararaan. Maalmo kadib, ciidanku waxay isku dayeen qaabab kale oo lagu weeraro emuyada. Waxay isku dayeen in ay shimbiraha ay ku weeraraan goobaha qoryaha ah oo ay si joogto u galaan, laakiin
Haddana waxaa caddaatay in si joogto ah loogu adkaan waayay shimbirihii, xitaa iyadoo hub culus la isticmaalay. Eemuyadu waxay ahayd kuwo adkaysi leh oo si sahlan uga baxsanaya difaacyada ciidamada. Waxaa xitaa la sheegay in qaar ka mid ah eemuyadu ay qoryaha ku dhuunteen ama ay iska dhigeen kooxo yaryar oo suurtageliyay in ay si fiican uga baxsadaan rasaasta. Waxaa la sheegay in hal eemu uu xabad ku dhacay, balse uu ku orday masaafo dheer kadibna uusan dhimanin, taasoo mar kale muujisay sida shimbirahan u ahaayeen xayawaan aad u adkaysta. Isku daydii isdaba joogga ahaa ee ciidanka iyo hubkoodu ayaa u muuqday kuwo guuldarro ah. Ciidanka oo hub qaatay iyo shimbiro dhaqso badan ayaa isku dhacay, laakiin ciidankii dowladda ayaa guuldareystay. Muddo kadib, waxaa caddaatay in dagaalkaas guusha aysan dhinaca dowladdu noqonin. Shimbiraha emu ayaa noqday kuwa ku guuleystay, iyagoo weli sii joogay beerihii ay cunayeen. Ciidamada Australia waxay soo ogaadeen in shimbirahan aan si fudud loo dabar goyn karin, waxayna qaateen go'aan ah in ay joojiyaan dagaalka. Waxaa la sheegay in dagaalkan lagu laayay qiyaastii 1,000 emu, laakiin boqolaal kun oo kale ayaa sii noolaa oo sii waday in ay beeraha cunaan. Warbaahinta gudaha iyo tan caalamka ayaa si weyn uga hadlay dagaalkan, wuxuuna noqday sheeko lagu qoslo oo ay dad badan ku tilmaameen guuldarro weyn oo dowladda Australia kala kulantay shimbiro. Dowladdu waxay isku dayday in ay cudur daarato, laakiin xaqiiqadu waxay ahayd in ay dagaal la gashay, laakiin shimbirahan ay ku guuleysteen dagaalkaas la yaabka lahaa. Marka laga hadlayo dagaalka The Great Emu War, waxaa jira dhowr cashar oo laga barto. Waxaa caddaatay in mararka qaar dowlad awood leh aysan si fudud uga adkaan karin dabeecadda dabiiciga ah ee eemuyadu. Eemuyadu waxay ahayd kuwo caqli badan oo ka adkaaday ciidan si buuxda u hubeysan. Tani waxay muujinaysaa in sida dabiiciga ah u adkeysan karo haddii laga fiirsan istiraatiijiyada la isticmaalo. Dowladda Australia waxay wax ka baratay dagaalkan fashilka ah, iyadoo markii dambe isticmaashay xeelado kala duwan oo ka mid ah dhismaha xayndaabka galleyda iyo xakamaynta duurjoogta iyada oo aan hub isticmaalin. Tanina waxay qayb ka ahayd casharrada laga bartay dagaalkan. The Great Emu War waa dhacdo la yaab leh oo noqotay qiso qosol iyo murugo leh oo ku saabsan dagaal aan caadi ahayn oo dowlad la gashay xayawaan duurjoog ah. Waxa ay noqotay tusaale sida mararka qaar aysan sahlanayn in la xakameeyo dabeecadda duurjoogta iyo sida awoodda shimbiraha dabiiciga ah ay u noqon karto mid ka adkaata awoodda aadanaha.